jaamacadaheena guryaha ugu qurqurxan ay ku jiraan iskuulaadkeena guryaha ugu qurqurxan ay tagaan muxum way fiican tahay jaamacaddu inay qurxonaato iskuulku inuu qurxonaado meel dadka indhahooda iyo qalbigooda soo jiidanayo wax lagu barto oo lagu farxo inay noqoto waa fiican tahay laakiin cagsigeeda waxa dugsigeena inuu jidka ku dhex yaalla maaha dugsi qur-aanka inuu jidka ku dhex yaalla maaha asna waa inuu qurxonaadaa oo nadiif noqdaa oo wixii dad meel isugu yimid waxay lahaayeen oo dhan waa inuu yeeshaa iskuul markii meel laga dhiso suuliya loo sameeyaa meel biyaha laga cabaa loo sameeyaa meel maxaan ku iraahdaay yaa loo sameeyaa waa meel waxbarasho waay dugsi qur-aanku maxaanu intaasoo kale u yeelan karin oo u mutaysta meel yaroo intaan ilmuhuba meelay kala istaagaan iyo meelay waxaystaan aan lahayn oo maxaan ku iraahdaay meelay suuli u aadaan ayna lahayn oo meel ay dugsi qur-aanka muxuu ku mutaystay dayacad soo maaha meesha inaan ka nimaado u baahannahay meeshaas waay dowladdu markay deegaanka qorsheynayso oo ay iskuulka u yeelayso oo ay police stationka u yeelayso oo suuqa ay u yeelayso oo maxaan ku raadaya hay-adaha dowladda oo dhan ay u yeelaysa meel isbitaalkii ay u yeelayso dugsi qur-aankana aanay u yeelayn masaajidkana aanay u yeelayn diinta weli dadkaa iskale maanta la joogo waa rabnaa berri allah na gaarsiiyo waxu xeydanaynaa waa berri laakiin maanta la joogo diinta dowladdu diinta ma leh inay lahaato waa ilaaliso waa ma aha inay wax ka bedelay inay kordhayn laakiin inay ilaaliso aanan muxuu ahaay aanan meel walba laga soo gelin oo luuq laga soo gelin oo la inxiraafinin oon waxaan sax ahayn aanan lagu soo dhex biirsanin oo waxaan diin ahayn aan lasoo dhex gashan oo nin wato waay dowladda mas-uuliyadda ugu horeysa waa taas inay ilaaliso in tadakhul aan diini ahayn diinta lagu dhex yeesho inay ilaaliso in qof gaara ama jamaaco gaara ay u isticmaasho diinta meel ay ku fushato dana uun iska gaaro oo dana kooxeed ama yaryar ah ay u ilaaliso dadku in ay maxaan ku irahdaay xor ay yihiin oo diintii barashadeedii iyo waxay tasiiraad u samayso u fududayso ay ka ilaaliso kii sii durqaaya xag u sii socdo inay soo celisto kaala adiga qarka ka dhicin waa dhici rabtaa meeshii lagu ilaali lahay ma qabno hadalkayga iyo hadalkaaga hadday iska hor yimaadaan oona lasra waa ku diiday kale lay leedahay le aniga kuma rabo anna kuma rabo meesha harta ka baxa marka waa inaan helnaa meel anna kuma rabo amna kuma rabo aanay ka imaan karin hay-addaas culimada in la aasaaso oo la dhisay ayaa dowladdeena maanta u taagan tahay in la helo waxaan rabnaa mas'ala diiniya hadday timaado waa ogtihiin salaada ciidda hala dukado problemaa ka taagan bishii soom waa la gaaray hala soomo problemaa ka taagan waa dhammaatay bishii hala afuro problemaa ka taagan yacni wuxuu uga taagan yahay anaa iri uga taagan yahay meel aan u wada noqono oo maxaa dhihi leedeen aan dhahnane nooma samaysna meeshii waaye inaan samaynaysa waa isku soo daynay xoogaa gaabisaana gale markalaan isku dayn xoogaa gaabisaana kama quusanayno maanta teeramka bilowgiisa shirkii 13 muxuu ahaay doctor maxamed xaaji iyo culimada ay sheegayeen waa run halkan lagu qabtay laakiin shirkaas kaligiis ma ahayn markaas waxay naga ahayd ummadda Soomaaliyeed bal dowladnimada lagu soo jeedo culimada hala shiriyo maxaan ku yiraahdaa aqoon-yahanada hala shiriyo maxaan ku yiraahdaa ayay ahayd mujtamaca qaybihiisa kala duwan oo dhan yaa waayahaas yaa la wada shiriyo kulli laakiin kii 15 oo maxaan ku yiraahdaa hotelkii City Plaza oo wasiirkeeni Sheekh Baghdadi oo wasiirka noo ahayo joogay ujeedadaan kala hayn